haddii aad u haysato markaad jaamacadda ka baxday ama aad u haystid markaad iskuulka ka qalin jebisay inay waxbarashadu ku eg tahay, waxbarashadu ma dhammaato. Aniguna mar walba aan muuqaal baahinaya ama mar walba aan muuqaal soo duubayo, lama hadla qofka ugu aqoonta badan ee barteeda YouTube-ka ku xiran, waxaan la hadlaa qofka ugu aqoonta liita amaba qofka aan aqoonba u lahayn. Waxaan ka hadlaya qaabka ugu fudud uu wax ku fahmi karo. Waa in aad ka shaqaysid. Sida looga shaqeeyo wax badan baa laga diyaariyey. Buugaag baa laga qoray, podcastya laga baahiyey, muuqaalaa laga sameeyey, wacyigelinaa laga sameeyey. Qofka siduu mentally and physically uu caafimaad qab u ahaan lahaa. Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan mar kale. Waxaan kuu rajaynayaa inay maalin qurux badan kuu tahay. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago 8 qodob oo aan isdhihi karo haddii qofka dhalinyarada uu sameeyo 2026 noloshiisa horumar ayuu ka gaari karaa. Qof walbo naga mid ah wuxuu rabaa inuu horumar gaaro, wuxuu rabaa inuu horumar ka gaaro nolosha, wuxuu rabaa inuu horumar ka gaaro dhaqaalaha, wuxuu rabaa inuu horumar ka gaaro xiriirada iyo weliba in uu dhaqaale ahaan noqdo qof isku filan. Marka maanta waxaan jeclaystay in muuqaalkan aan kula wadaago 8 qodob oo haddii aad joogtaysid aan isdhihi karo noloshaada horumar ayay u horseedi karaan. 8 qodob waa waxyaabo aad u fudud oo waxyaabo la samayn karo si daily ah loo samayn karo oo aan kaaga baahnayn inaad waqti badan aad gelisid amaba in aad maalin walba aad saacado aad ku dhumisid. Waa waxyaabo kaliya kaaga baahan in aad gelisid ugu yaraan 30 daqiiqo ilaa iyo saacad maalintii. Haddii aad samayn kartid 8 qodob, waxaan kuu hubaa oo kuu ballan qaadayaa in noloshaadu ay horumar ku tallaabsan doonto. Waxyaabahan aan kula wadaagi doonana waxay ka mid yihiin waxyaabo caadaad inaad ka dhigato loo baahan yahay oo nolol maalmeedkaaga aad ku dabaqdid. Maalin walba waxaad qabanaysid qorshayaashaada iyo noloshaada iyo jadwalkaaga aad maalin walba aad ku dartid. Qodobka ugu horeeya ama qodobka koowaad wuxuu yahay qorshee habeenkii maalintaada xigta waxyaabaha aad qaban lahayd. Xaqiiqdii dhalinyaradu tan kuma baraarugsana. Haddii ay ku baraarugsan yihiin waa dhalinyaro aad u yar oo fahmay ahmiyadda ay leedahay in la qorsheeyo habeenkii ama subaxii hore in aad qorshaysid waxyaabaha aad maalinta aad qaban lahayd. Waxaa jira muuqaal aan kaga hadlay oo aan ku faahfaahiyey faa'iidada iyo ahmiyadda ay leedahay in qofka noloshiisa ay qorshaysnaato uu leeyahay qorshe maalinle ah. Marka waxaad samaysaa oo aad diyaarsataa habeenkii waxyaabaha aad qabanaysid maalinta xigta hadduu Ilaahay caafimaad kugu soo toosiyo. Tan waxay kaa caawinaysaa in aadan isku dhexyaac aadan dareemin in howlo badan ama taskiyo badan ay kuu yaalaan iyo in aad ku dhibaatootid qaabkii aad howlaha aad u maareyn lahayd. Marka waxaad samaysaa qorshahaas dejiso habeenkii ka hor inta aadan seexan waxaad qorataa waxyaabaha aad qaban lahayd maalinta xigta hadduu Ilaahay caafimaad kugu soo toosiyo. Qodobka labaad wuxuu yahay aad u adag tahay inay dhalinyaradu badanaa ay sameeyaan. Waxayna u baahan tahay tababar badan iyo waxay u baahan tahay in qofka uu markaasi go'aan adag u leeyahay. Tan waxay tahay qodobka labaad wuxuu yahay subaxii waqti hore hurdada ka toos. Haddii qof dhalinyaro aad tahay oo aad caafimaad qabtid aad shaqaysan kartid wax qabsan kartid subaxii hurdada waqti hore ka toos. Hurdada waqti hore laga tooso waxaa ku jirta irsaaq ayaa ku jirta. Qofka wuxuu dareemayaa in Ilaahay uu faraj u furo. Laakiin haddii qofku iska jiifo uu waqtigii uu ka lixi lahaa uu qaraab doonan lahaa uu sariirta ku gaaro waxay noqonaysaa in qofkaasi uusan nolosha horumar ka gaaraynin. Waxyaabaha la isku raacay ee laga wada siman yahay ee caalamkao dhan ay ka siman yihiin waa ka lixidda subaxa hore. Barakada ku jirta waxaa fahmi kara qofka ka laha subaxa hore.
haddii tusaale yar aan kuu soo qaato bal u fiirso ilaahay awooddiisa shimbirka yar subaxii alasaydi ayuu wuxuu ka baxaa buulkiisa markuu buulkiisa ka baxo wuxuu u foofaa inuu wax soo dhacsado inuu arsaaqda ilaah asagoo ilaahay arsaaqay uu maalintaa wuxuu cunayo wuxuu cabaya ay qoran yihiin ayuu haddana wuxuu u kallaxaa in arsaaqdiis uu raadiyo marka annagoo aadanaa marka inaan taa gara weyno waxay nagu tahay waa xoogaa si yacni aan waafaqsanayn inaan u dhahan diidaya laakiin waxay nagu tahay xoogaa inaan yacni u diyaarsanayn in maaragtay aan horumar gaarno marka haddii aad dhalinyaro tahay waxaad isku daydaa oo aad ku dadaashaa in subax hore aad ka laxdid irsaaqda ku waasacayso waqti aad u fara badan oo aad wax ku qabsan kartidna waad helaysaa hadduu ilaah karaal noqdo marka subaxii hore iyow toos oo foof wuxuu ilaahay kuu qoro weymaysid ma shaqeeyo shaqo ma jirto waxaan qabto ma jirto cudurdaar ha ka dhiganin ilaahay baa ku arsaaqayo ilaahay baa faraj kuu furayo subaxii hore hurdada ka toos hadduu ilaah karaal noqdo qodobka saddexaad oo aan isdhihi karo isagana aad iyo aad u muhiim u yahay waa in qofka uu yoolal leeyahay yoolal cad inuu qofka leeyahay yoolashu waa waxyaabaha aan hiigsanayno in aan ka guul gaarno waa waxyaabaha aan rabno in aan qabanno oo mustaqbalka dhow aan ka guul gaarno marka haddii qofka uusan yoolal iyo ahdaaf uusan lahayn noloshiisu halkay u socoto ma gara karo wuxuu hiigsanayana ma gara karo marka si aysan taa kuugu dhicin waa in aad leedahay yoolal cad waa inaad leedahay oo aad ku dartid maalinta jadwalkaaga maalinlaha ah inaad ku dartid oo aad samaystid yoolal maalintii aad ka guul gaartid yoolal toddobaadle aad kaga guul gaartid iyo yoolal bilo ah iyo yoolal sanadla haddii aad taa samaystid waxaa kuu fudaanaysaa in nolosha aad horumarka gaartid marka waxaad degsataa yoolal degso yoolalkaad degsanaysa ha noqdaano yoolal aad ka guul gaari kartid wax haddii ay noqoto yool aadan ka guul gaari karin tusaaloo kale waxaa rabtaa inaad samaysid lacag aad u fara badan 20,000 30,000 40,000 ayaan rabaa inaad sameeyo waa yool ahaan baad u degsatay bal ka waran haddii aadan awoodinba in bishii $100 ay ku soo gasho ee aad qoratay yool inaad sanadkii samaysid 20,000 25,000 aad samaysid maaha yool aad ka guul gaaraysid waa yool aad waqti isaga luminaysid ee aadanna ka guul gaaraynin marka si aysan taa u dhicin waxaad samaystaa yoolal yaryar ee aad ku gaari kartid yoolalka fogfog ee mustaqbalka aad ka guul gaari kartid hadduu ilaah karaal noqdo marka qodobka saddexaad wuxuu yahay inaad yoolal cad aad leedahay qodobka afaraad oo isagana aadka u muhiimsan wuxuu yahay qofka raba inuu nolosha ka guul gaarana uu mustaqbal qurux badan u dhistana u baahaya inuu ku baraarugo waxay tahay iska jooji waxyaabaha waqtiga kaa dhuminaya iska jooji waxyaabaha waqtigaaga dhuminaya iska jooji maanta dunida waxaa ku badan waxaa la yiraahdo procrastinationka waxyaabaha dadka dib u dhaca u keena ayaa ku badan oo uu ka mid yahay social media oo ay ka mid tahay meelo fadhiga maqaayada fadhiga fadhi ku dirirka iyo waxyaabaha aanan qofka waxna ku soo kordhinaynin ayay ka mid tahay marka waxaad ku dadaashaa in aad iska fogeysid wax kasta waqtigaaga dhumi kara ee kaa dhumi kara waqtiga meelo fadhiga social media faraha badan aad isticmaalaysid iyo waxyaabahaasi noloshaada horumar ma gaarsiinayaan haddii social media aad lacag ka samaysid ee aad u soo gasho inaad dhaqaale ka samaysid ee aad waqtigaada gelisid waa il dhaqaale oo adiga aad lacag ka samaysid marka inaad waqti gelisidna taa waa laga maarmaan ayay ku tahay laakiin haddii social media aadan lacag ka samaynaynin waqtigaaga ha ku luminin ee waqtigaada waxaad gelisaa wax manaafacaad ku leh oo noloshaada iyo mustaqbalkaaga horumarin kara marka qodobkaas afraadne marka ku baraarug oo si fiican u fahan maanta dunidu dib u dhaca ayaa ku badan way ku dhibaataysan yihiin dadka siday kaga baxsan lahaayeen noloshan dib u dhaca marka waxaad ku dadaashaa markayna waqtigaada aad ku dhumisid meel aad wax ka soo saari kartid hadduu ilaah ka raali noqdo
Qodobka shanaad oo isagana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan aan dhihi karo qofka dhalinyarada inuu sameeyo waa lagama maarmaan sanadka 2026 waa in aad ka fikirtid ama waxaa la yidhahdaa daryeelka caafimaadkaada waa inaad ka fikirtid. Waa inaad daryeeshid. Daryeel caafimaad waa inaad heshid oo aad ka fikirtid caafimaadkaaga. Caafimaadkaaga jir ahaaneed, caafimaadkaaga maskax ahaaneed waa in aad ka shaqaysid. Sida looga shaqeeyo wax badan baa laga diyaariyey. Buugaag baa laga qoray, podcastya laga baahiyey, muuqaalaa laga sameeyey, wacyigelinaa laga sameeyey. Qofka siduu mentally and physically uu caafimaad qab u ahaan lahaa. Marka waxaad ku dadaashaa in aad caafimaadkaada aad daryeeshid ee aad ka fikirtid waxyaabaha dhibaatada kuu keeni kara, waxyaabaha maskaxdaada iyo caqligaada iyo qofnimadaada baabi'i kara iyo waxyaabaha markaasi ku hormarin kara. Mentally iyo physically haddii aad u fahantid sida lagaga fikira caafimaadkaaga ee aad u daryeeshid caafimaadkaaga, waxaan hubaa in nolosha aad ka guulgaaraysid ee aad horumarka gaari doonto hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Marka waa inaad daryeel caafimaad aad la imaatid. Qodobka lixaad ee ka midka ah qodobada aan kula wadaagayo waxa weeye qodobka wax akhri. Wax akhris. Wax akhri. Muuqaalo badan ayaan kaga hadlay. Buugaag badan ayaa halkan aan ku soo bandhigay. Faa'iidooyinka wax akhriska iyo ahmiyadda uu leeyahayna muuqaal aan kaga hadlay ayaa ku jira barteeda YouTube-ka waad ka daawan kartaa. Maalintii ugu yaraan maalintii 30 daqiiqo inaad wax akhrisid ku dadaal. In aad maalintii wax akhrisid ku dadaal. Waayo wax akhriska wuxuu qayb ka yahay daryeelka caafimaadka maskaxda ayuu qayb ka yahay. Marka caafimaadka qodobkii ka horreeyay qodobkan aan ku laabano mentally si aad u noqotid qof caafimaad qaba ee garaadkiisa kordha, aragtidiisa iyo afkaarihiisa iyo fikradihiisa iyo fikirkiisa iyo isbedelaan waa inaad wax akhrisid. Waxa maalin walba aad akhrisidne waa waxyaabaha marka uu Ilaahay ka raali yahay. Quraanka Kariimka haddii maalin walba juz aad akhrisid, haddii buug aad soo qaadatid aad 10 buug 15 buug aad akhrisid, isbedel nololeed ayaad dareemaysaa. Horumar ayaad dareemaysaa. In noloshaada horumar ay ku tallaabsanayso waad dareemaysaa. Marka waxaad samaysaa in aad wax akhrisid. Wax akhri. Wax akhriska aan kuu sii raaciyey waxaad samaysaa inaad si joogto ah wax isku bartid. In aad si joogto ah aad wax isku bartid. Waxbarashadu ma dhammaato. Haddii aad u haysato markaad jaamacadda ka baxday ama aad u haystid markaad iskuulka ka qalin jabisay inay waxbarashadu ku eg tahay, waxbarashadu ma dhammaato. Marka waxaad ku dadaashaa in aad si daily ah aad wax u baratid. Wax kasta ayaad baran kartaa. Cilmi kutaabada ayaad raacan kartaa. Maadiga, diiniga, waxaasoo dhan ayaad baran kartaa. Xirfado cusub ayaad baran kartaa. Marka waxaad ku dadaashaa inaad wax akhriska joogtaysid iyo inaad si daily ah aad wax isku bartid. Qodobka toddobaad ee isagana ugu muhiimsan ee qofka horumar gaarsiin kara wuxuu yahay saaxiibo wanaagsan inaad samaystid. Saaxiibadu waxay ka mid yihiin bulshada kuwa noogu dhow. Dadka noogu dhow waa saaxiibadayna. Haddii saaxiibadaadu ay wanaagsan yihiin, ay yihiin saaxiibo wanaagsan oo horumar samaynaya, ku dhiirigelinaya, maaragtay kugu jiidaya jidka wanaagsan. Dadkas la saaxiib. Haddii saaxiibadaadu ay yihiin saaxiibo nolosha ka dhacsan, balwad isticmaala, meelahaas ka fadhiya, qabyaalada ka hadla, naftooda aan horumarinin, dib ayay kuu dhigayaan. Haddii 5 ka mid ah saaxiibadaadu ay xun yihiin, waxaad noqonaysaa qofka 6aad ayaad noqonaysaa. Haddii 5 ka mid ah saaxiibadaadu ay yihiin 5 saaxiibo, waxaad noqonaysaa qofka 6aad ee markaasi noqda qofka wanaagsan. Marka saaxiibadu saameyn ayay nugu leeyihiin. Marka waa inaad saaxiibo wanaagsan aad samaystaa si nolosha aad horumar kaga gaartid. Waana waxyaabaha ugu muhiimsan marka laga hadlayo isdhexgalka bulshada. Dadka noogu dhow waa saaxiibadayna. Marka saaxiibo wanaagsan samayso hadduu Ilaahay ka raali. Qodobka 8aad ee ugu dambeeya waa qodob aan mowduuc ahaan kaga hadlay. Waa qodob aad iyo aad muhiim u ah. Qodobkan dhaqaale ahaan inaad noqotid qof isku filan noqo. Qodobka 8aad waa in aad dhaqaale ahaan noqotaa qof isku filan.
dhaqaale ahaan waa inaad noqotaa qof isku filan. Ma ahan isku filnaanshiyaha inuu yahay mushaar fara badan oo aad qaadatid, laakiin isku filnaanshiyaha wuxuu yahay boqolka dollar mushaarka aad u qaadatay habka aad u maamushid ayaa la yidhaahdaa isku filnaansho dhaqaale inaad gaartid. Haddii boqolka dollar aad ku iimaan qabtid ee aad ku sabarsan tahay ee aad si dhab ah aad u manage garaysid ama aad u maamushid halkay kaaga baxayso halka senti iyo labada senti amaba 10ka senti ama 10ka dollarba aan dhahnay. Haddii aad baratid waxaad awood u yeelanaysaa in dhaqaale ahaan aad noqotid qof isku filan. Kala duwanaanshiyaha mushaarka micno ma sameeyo ee waxa micnaha sameeya waa qofka sida uu u maamulo dhaqaalihiisa. Marka waa in dhaqaale ahaan aad noqotaa qof isku filan. Dhaqaale ahaan si aad isku filnaataan waxaad u baahan tahay in aad maaraysid, maamushid qarashka ku soo gala. Haddii bishii 10,000 ay ku soo gasho iyo haddii 100 dollar ay ku soo gasho, labada qof isku mid ayay u tahay. Isku mid ayay u tahay markaan ku leeyahay bixinta, kaydsashada iyo waxa lagu kala duwan yahay maalgashiga. Haddii 10 dollar aad meel dhigatid, kayd aad ka dhigatid, ee aad 40 dollar aad wax ku maalgashatid, waad ka duwan tahay qofka 10,000 soo gashay ee aan hal dollarna meel dhiganin. Marka kala duwanaanshihu waa intaa. Waxaadna ogaataa in isku filnaansho dhaqaale la gaaro kuma xirna qarashka qofka soo gala ama mushaarka qofka soo gala. Ay waxay ku xiran tahay habka uu u maamulo dhaqaalihiisa iyo halka uu ku bixiyo. Marka 8 qodob ayaan jeclaystay inaan muuqaalkan kugula wadaago. Waxaan is dhihi karaa waa qodobo haddii qofka dhalinyarada uu sameeyo ay noloshiisa horumar gaari karto. Marka hana yaraysanin oo ha isdhihin waxyaabahan way fudud yihiin, waxyaabahan way yar yihiin, waxyaabahani maahan waxyaabo waaweyn. Aniguna mar walba aan muuqaal baahinaya ama mar walba aan muuqaal soo duubayo, lama hadla qofka ugu aqoonta badan ee barteeda YouTube-ka ku xiran waxaan la hadlaa qofka ugu aqoonta liita amaba qofka aan aqoonba u lahayn. Waxaan ka hadlaya qaabka ugu fudud uu wax ku fahmi karo. Marka 8 qodob haddii aad samaysid, waxaan hubaa in dhaqaale ahaan aad noqon kartid qof isku filan, in cilmi ahaan aad noqon kartid qof aqoontiisa, waayo aragnimadiisa, aragtidiisa, xirfadihiisa kobciya, iyo in aad noqotid qof ma aragtay waqtigiisa si qurux badan uga faa'iidaysta. Midda ugu dambaysana in dad wanaagsan aad garbahaaga aad ka fiirisid oo ah saaxiibada wanaagsan. Marka 8 qodob ayaan jeclaystay inaan muuqaalkan kugula wadaago. Haddii aad ka faa'iiday qaybta faallada ayaad igu reebi kartaa aragtidaada. Haddii aad nagu cusub tahayna waa inoo farxad inaad nagu soo biirto. Haddii aad horey noola jirteen waxaan kaa codsanayaa in aad saaxiibadaada la wadaagtid oo maalmahan waxaan la tacaalaynaa viewskayna oo aad u hooseeya. Marka haddii aad nagu caawin karto inaad like iyo share noo taabatid waa inoo farxad. Waxaan kaaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Waa inoo muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum.